haddii aad tahay arday amase macalin amase aad ayagu ka soo gasho bahda waxbarashada iyo aqoonta waxaad uga faa'iidaysan kartaa website-kan gamma.app inaad ku samaysato kuna diyaarsato AI documents iyo presentation kuwaasoo uu ku diyaarinayo ilbiriqsi gudahood artificial intelligence si aad u isticmaasho waxaad soo geli doontaa gamma markaad ku qorto linkiga koowaad ay ku qoran tahay gamma.app ayaad ku dhufan doontaa kadib daaqad noocana ayaa ku soo baxaysa new medium for presentation ideas sida darteed waxaad doonayaa inaad iska diiwaangeliso aad sign up samayso halkan sare ayaa waxaad ka eegaysaa meel asha ay ku qoran tahay login oo ah in aad gasho login kolkaad ku dhufato wuxuu halkan ku saarayaa username iyo password ama email iyo password maadaama aadan hore ugu lahayn waxaad leedahay continue with Google oo ah anoo isticmaalaya Google account-kayga ayaan gelayaa sida darteed haddii Gmail aad leedahay Gmail-kaaga ayuu ku soo saarayaa isla markiiba waad ku sii dhufan doontaa isla marka aad Gmail-ka aad ku soo xiriiriso ama Google account-kaaga wuxuu ku weydiinayaa waxaad ujeedadaadu adeegsanaysid iskuulka ma shaqaad u isticmaalaysaa mise personal use waxaa leeyahay maadaama anugu shakhsiyan aan rabo personal use kadib wuxuu ku leeyahay shaqo noocma ayaad ku qabanaysaa what kind of work do you do waxaad qabataa shaqada qabatid maxay tahay waxaa leeyahay educator dooranaya ama student waan dooran karaa xagee baad naga soo maqashay aad website-kan ku aragtay falahaan waxaad leedahay TikTok submit ayaa leedahay kadib wuu kuu gudbinayaa iminka waxaad isticmaali kartaa gamma.app markaan rabno inaan documents aynu leenahay ama presentation cusub oo artificial intelligence igu noo sameeyo waxaan ku dhufananaa daaqadatan ama badhakan ay ku qoran tahay new with AI oo ah inaad documents cusub ku samaysato adoo adeegsanaya AI labadan mid waa text qoraal kaliya kana waa guided oo mid isagoo ku agaasimay oo haddii sawir loo baahdana uu ku gelin doono isaga ayaan dooranayaa kadib saddexda nooc ayuu soo saarayaa oo ah inuu ii sameeyo presentation documents oo qoraal kaliya inuu ii sameeyo web page saddex waxaan dooranayaa presentation ayaan rabaa inaad ii doortid presentationka waxaa ku leeyahay topic aad rabtid presentationka lagaaga diyaariyo wuxuu yahay waxaan leeyahay waxaan u baahanahay presentation ka hadlaya understanding baan leeyahay operating system intaas ayaan intersiinayaa fahamka operating systemka ayaan leeyahay ka diyaari intana ciwaan ayuu ii soo saaray introduction to operating system functions and operating system types of operating system open source vs operating system evolution intan oo dhan ayuu ciwaan soo saaray intaasaan leeyahay presentation iga dhig continue ayaan leeyahay kadib qaybtan waxaad ka aragtaan in halkan aad dooran kartaan theme ama nashqada uu soo noqon doono kala dhawaya dooran kartaa adiga waxaa leedahay surprise me adiga markaa ku dooraya design-ka uu doono ula arko inuu qurux badan yahay uu arko kadib waan sii soconayaa burfanayaa iminka ayuu diyaarinayaa sida aad u aragtaan imaanka ayuu sameynayaa haddii sawir loo baahdo gelinayaa aad aragtaan wedwed ayuu u diyaarinayaa isaga ayaa hadda adoo arkayo soo qaadanaya sawiradii loo baahday ciwaanadiisii haddii loo baahdo listing properties dhammaantood isaga ayaa markiiba ku diyaarinaya iminka waxaa rabtaan halkan soo qoray presentationkaaga waa la dhameeyey halkan sare browserka waxaan ku arkaa present oo haddii aan u baahanahay isla presentationka laga diyaariyey in aan soo jeediyo isaga laftirkiisa ayaad kasoo dhex jeedin kartaa oo waxaa xitaa looga faa'iidaysan karaa ardayga haddii presentationka waqti u waayey oo markiiba ardayda dhexdeeda ama isagoo jaamacadda jooga ama college uu samayn karo operating systemka haddii looba diro la presentation noocaas soo jeedinaysaa in waqtiga hadduu ka dhacayo si degdeg uu ugu samaysan karo kan isla meeshan uu kusoo jeedin karo isagoo wax ku duwan software-adan la yidhaahdo office ah ama powerpoint haddii aan escape taabto aan dib u laabto ma la degi karaa oo ma shuban karaa si aan u akhristo presentationkan la ii diyaariyey waxaan tegayaa saddexdan dot ee sare menugan ayaan soo furayaa kadib waxaan baarayaa meesha ku qoran tahay export si aan ugu rogto computerkayga kolka aan ku dhufto waxaan baarayaa kan waa PDF ahaan laakiin waxaan doonayaa powerpoint maadaama presentation yahay slidesna leh kadib isaga ayaan ku dhufanayaa export isagoo powerpoint iyo save garay ayaan leeyahay oo ku dhufanayaa xagan wuxuu ku bilaabay marka generating ayuu ku bilaabayaa oo waxa uu diyaarinayaa in uu ku rogo presentationkii uu ku diyaariyey gamma.app وهاجي إمك حركتان إن باور بنتيجي وياهي رشيدي ولا سو دون جريء ويسود عاي كل كهدي أن كفتو
عندما باوربنتيga soo fura wuxuu igu soo furayaa barnaamijka باوربنتيga ayuu ku soo kicinayaa waad aragtaan isagoo sawiradiisa wata enable editing haddii aad u baahan tahay inaad edit ku samayso qoraalada qaar aad wax ka reebto wax ku darto farta bedesho sizekeeda enable editing ayaa leedahay kadib caad ayuu kugu furmayaa waxaa aragtaan qoraalkii waxaan doonaa ku samayn karo fartaha cabirkeeda xitaa wax ka bedbedeli karo kordhin karo yarayn karo kadib waxaan leeyahay sidan ayuu u egyahay presentationkii uu diyaariyey waxaad aragtaan in uu u diyaarsan yahay qaab farsamaysan oo aan u baahnayn in farshaxan daba lagu sameeyo sidaas ayaad ku samaysan kartaa presentation ama AI artificial intelligence uu ka caawinayo presentation lagu sameeyey waqti kooban sidoo kale maxaad ku samaysan karaa kan wuxuu ahaa presentation isagoo documentisa home-ka haddii aan tago aan dib u laabto waxaan leeyahay kaniga xidh new with AI mid uu samee guided ayaan leeyahay iminka dooro kadib marka hore presentation ayaan doorto waxaan iminka documentisa ayaan rabaa inaan samaysto documentiga doonaysid waxaad ka qoraysaa waxaan iska leeyahay history of baan leeyahay technology inter ayaa siin doonaa uu documenti iga diyaariyo kadib intan ciwaan ayuu ii keenay prehistoric technology ancient technology medieval technology industrial revolution 20th century technology 21st century technology future technology intaasoo ciwaan oo documenti ayuu ii samaynayaa kadib waxaan leeyahay continue ii diyaari desaynkan waxaa dhahdaa mid noocan oo caddaan ii diyaari continue iminka ayuu wuxuu diyaarinayaa ilbiriqsiyo gudahood ku diyaarinayaa documentigii doortay oo ah taariikhda ama suryaalka teknolojiyadda ama farsamada wax yar waad sugaysaa adoo arkayaa iyo qoraya oo daawacayaa iminka wuxuu ii dhameeyey documentiskii haddii aan u baahnay documentigii inaan save garaysto isna waxaan leeyahay menuga ayaan tegayaa waxaan leeyahay export isagoo PDF ayaan la degi karaa kadib uu download garaynayaa sidaas ayuu igu download garaysamaya isna documentiskan website-ka magaciisa waxaa la yidhahdaa gamma.app haddii aad u baahan tahay mar walba inaad soo geshid waxaad browserkaaga kusoo qoraysaa gamma.app ayaad leedahay intan ayaad siinaysaa haddii aad leedahay Google isaga ayaad kusoo geli kartaa muuqaalkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan iyo muuqaalo kale xiiso haddii aad u baahan tahay subscribe oo nagu soo biir muuqaaladan waa la mid intaan ku kulmi doon kan kaga tagayaa assalaamu calaykum